السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوران قاسلقجي oo ah madax saxafiyiinta Carabta ee gudaha dalka Turkiga ayaa daah ka qaaday in uu jiro rabitaan weyn oo koox ganacsato ah ku doonayaan in ay ku iibsadaan dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul yoolkooduna yahay in ay u bedelaan dhismaha madxaf. Qaaslaqji wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu in uu yimid qorshahani kadib kulan ay yeesheen ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta. kulankaas oo halkudhigiisu ahaa waa in qunsuliyadda noqotaa madxaf ee qabriga Jamaal Khashoggi. Dooraan Qaaslaqji oo sii wad hadalkiisa wuxuu cadeeyay in ay jiraan ugu yaraan 20 maalqabeen oo diyaar u ah in ay gadaan dhismaha qunsuliyadda qarash kastaba ku kacay loona bedela dhismaha madxaf ee qabri wata magaca wariye Jamaal Khashoggi. waayo Jamaal ayaa halkaas lagu dilay meydkiisana lagu waayay. fadlan kanaalka subscribe saar hadana waa cusubtaa walaal.